asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal daawadayaal saaxiibayaal kusoo dhowaada barnaamijkan oo aanu kaga hadli doono ra-iisul wasaaraha dalka Bakistan Imran Khan oo difaacay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta isla mar ahaantaasna sheegay in la kala fogeeyo xagjirnimada iyo diinta islaamka. balse marka hore waxaanu idinka codsanaynaa inaad la wadaagtaan asxaabtiina barnaamijkan oo aad ka falcelisaan si ay u noqoto dhiirigelin. waxaan ogahay mowduuc sii badanaya kaas oo ah islamophobia ama buufiska laga qabo islaamka, kaas oo yeelanaya cawaaqib xumo. in la joojiyo ma ahee, cawaaqibtu waa ay imaanaysaa maxaa yeelay dhammaantayo waan ognahay in cadaadinta jaaliyad kasta in ay sababto xagjirnimo. waxaan arkay jaaliyadda Pakistan ee dalka England oo la cadaadiyey deegaanada Manchester iyo Birmingham. waxaan aragnay in xagjirnimadu ay ka imaanayso bulshooyinkan. waxaan ku aragnay sidoo kale Yurub qaybaheeda kale taas mid la mid ah. waxaan doonayaa in aan fursadan ku sheego in dhaawaca ugu weyn ee gaaray muslimiinta kadib 11kii bishii 9 2001 uu yahay in argagixisada lala xiriiriyo islaamka. islaamku waa argagixiso, muslimiintu waa xagjir. si joogto ahna erayadan waxa uu adeegsanayay madaxda wadamada reer galbeedka markii ay sharaxayaan argagixisadii dhacday 11kii bishii 9 sanadkii 2001 iyo dhammaan qaraxyadii ka dambeeyay ee argagixiso ee dhacay weerarkaas kadib. goorta aad isticmaasho ereyga xagjiriinta islaamiyiinta ah, taas macnaheedu waxa weeye in ay ka timid waxa uu islaamku u dhalay xagjirnimada. maxaa yeelay islaamka ayaad ka wadaa xagjirnimada waxaa lala xiriiriyey islaamka, weliba gaar ahaan ismidaaminta bamka. maxaa yeelay faallooyinka iyo warbixinada waxaad ku maqashaa qof muslim ah ayaa isqarxiyey. wax yar oo dulmar ah. qof walba oo yaqaan taariikhda wuxuu ogyahay in bini'aadamku si aad ah ugu hamuum qabay marka laga hadlayo taariikhda ismidaaminta ka hor bishii 9 11keedii 2001 in 75% ismidaamintu ay fulin jireen kooxda Tamil Tigerska oo diintoodu ay ahayd Hindus. cid ka hadashay ma jirin Hinduska in ay sameeyeen falkaas. sidoo kale qof walba wuu daawaday filimo badan oo ka sheekeynaya dagaalkii labaad ee adduunka. wuxuu arki karaa in Jabaanku ay isqarxinayeen maraakiibta dagaalka Mareykankana ay la beegsanayeen ismidaaminta. ma jirto cid ku eedeysay diin maxaa yeelay waxyaabahaasi oo dhan diintu shuqul kuma lahan. dhammaan argagixisanimadu waxa ay la xiriirtaa siyaasad. waa siyaasad dhashay eexda iyo cadaalad darrada oo ay dad caraysani ay sameeyeen qaraxyo iyo argagixisanimo. si joogta waxaan u maqlanaa islaam xagjira. waxaa jira hal islaam, waa islaamka nabi Muhammad salawatullaahi calayhi wasallam, taasi oo aan raacsannahay. ma jiro islaam kale oo ka dhex jira bulshooyinka muslimiinta ah. intooda badan waa kuwo dhexdhexaad ka ah oo fiican oo aan marnaba ogolayn in dad la laayo. waxaa jira kuwo cunsuriyiin ah iyo kuwo wanaagsan. ka warrama cunsurigii ku laayay 49 qof oo cibaadaysanayay New Zealand. maxay arrintaasi diin ay ka og tahay? sidaasi darteed waxaa muhiim ah in madashan aan uga hadalno, muslimkana ay ka wada hadlaan kala qaadidda argagixisanimada iyo islaamka. waan ogahay in bulshooyinka muslimiintu ay leeyihiin dad xunxun sida bulshooyinka Kirishtanka iyo Yuhuudda. yaynan halmaamin in Hindiya xagjirnimada waddanka oo idil ay aad u saameysay, isla mar ahaantaasna ay la wareegtay. xagjiriinta kala duwanaanshaha bulshooyinka Hindiya haatan waa u caadi. haddaba qodobkayga ugu horreeya ayaa ah in la sheego in madaxda adduunka aanu ka maqalno in xagjirnimada iyo islaamku in la kala saaro. haddii la isku dhejiyana ay sababayso dhibaato. sidee ayuu kugu sheegi karaa oo uu ku ogaan karaa qof jooga waddanka Mareykanka gaar ahaan New York qofkan waa muslim xagjir ah iyo kan waa muslim qunyar socda? sidee ayuu qofku ugu sheegi karaa arrintaas? marka ma muslimiinta oo dhan baa lagu suntay in ay yihiin kuwo xunxun? markii weeraro ay ka dhacaan wadamada reer galbeedka, qof kasta oo muslim ah wuxuu bilaabayaa inuu ka fakero inuu dhaho waxaan rajeynayaa in muslim qof ahi uusan samayn falkaas. maxaa yeelay durbadiiba waxaan lagu dhajiyay oon lagu suntay in aan nahay argagixiso. kadib bishii 9 11keedii 2001 markii uu dhacay qaraxii daarihii Mareykanka, waxay la soo hadlay wariye reer galbeed ah oo wuxuu weydiiyey
miyiidnaan isku xishoonayn wixii aad samayseen darteed? sideen ugu xishoodaa 1.3 bilyan oo muslimiin ah mid ka mid ah haddii uu fal xun uu sameeyo? qodobka labaad ee aan rabo in aan ka hadlo ayaa ah waxaan arkay ninka xun ee lagu magacaabo Salmaan Rushdie, kaasi oo soo saaray buuggiisii aayadaha shaydaanka. waxay ahayd aflagaado iyo in lagu cayaaro nebiga sharfoon salawaatullaahi calayhi wasallam. waxaan ogaaday markaas waxaan ciyaarayay ciyaaraha waqtiyadayda intooda badanna waxaan ku qaadanayay dalka England, waana fahansanaa waxa ku jiray maskaxda reer galbeedka. dadka reer galbeedka ma aysan fahmi karin xanuunka ay ku keentay dunida muslimka arrinkaas, maxaa yeelay khaas ahaan Yurub diinta aad uma qiimeeyaan sida aan annaga muslimiinta ah u qiimayno diinteenna. waan jecelnahay diinteenna, iyaga ma jecla. waxay leeyihiin fikir guud ahaanba ka duwan kan aan haysanno. markii ugu horreysay ee aan imaado England 18 jir ayaan ahaa. waxaa jiray filim qosol ah oo la oran jiray Life of Brian. waxaa lagu jilayay jilitaan ah Nabi Ciise calayhi salaam. waan yaabay. Yurub waxaas ma yaqaanaan, ma eegaan diintooda sida annaga. waxaan eedda saarayaa madaxdeenna muslimiinta ah. uma aanan sharixin reer galbeedka sida uu u xanuun badan yahay markii nabigeena salawaatullaahi calayhi wasallam la aflagaadeeyo oo wax laga sheego, maxaa yeelay nabigeennu wuxuu ku dhex nool yahay qulubteenna. waxaan ogsoonnahay in xanuunka wadnaha uu aad uga weyn yahay ugana daran yahay xanuunka jirka. dhammaantay waxa aan doonayno madaxdeenna muslimiinta ah oo uu ku jiro madaxweyne Erdogan iyo kuwa muslimiinta ah waa inaan gaarsiino madaxda reer galbeedka in adduunka sida uu dareenka uga bixiyo xasuuqii yuhuudda sidaas si la mid ah in dareen xoogan looga muujiyo wax ka sheegidda nebi moxamed salawaatullaahi calayhi wasallam. waxaan rajeynayaa bulshooyinka in ay isfahmaan si ay u wada noolaadaan.